shanta ciyaaryahan ee ugu badan ee dhaliyay waxa loo yaqaan match winning goals ama goolasha sababay inay kooxda badiso. Kaalinta shanaad waxaa ku jira xidigii hore ee kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Cameroon Samuel Eto'o ayaa dhaliyay 123 gool oo sababay inay badiso kooxdiisa. Kaalinta afraad waxaa ku jira xidiga kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Poland Robert Lewandowski ayaa isna dhaliyay 136 gool oo sabab u ahaa inay badiso kooxdiisa. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira xidiga kooxda AC Milan iyo xulka qaranka Sweden Zlatan Ibrahimovic ayaa isna dhaliyay 155 gool oo sabab u ahaa inay badiso kooxdiisa. Kaalinta labaad waxaa ku jira maajiga kubadda cagta ee Lionel Messi ayaa dhaliyay 188 gool oo sababay inay badiso kooxdiisa. Kaalinta koowaad waxaa ku jira wiilka uu dhalay Dos Santos Aveiro ee Cristiano Ronaldo ayaa isna dhaliyay 220 gool oo sabab u ahaa inay badbaadiso kooxdiisa.